السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناسن داود يال كسر وهذا برنامج كيني عن كل شيء كنجي تاريخ نولدك فنك بولودك وانت نديرده وحين وصلنا حد قلب جعليه اتكلم ما هو تايجر شرف وحا ابوه شو عداقي لبدا جعليه جيكي شريف تايجر شرف waxa uu dhashay labadii March 1990 haatan waa 32 jir waxa uu ku dhashay Mumbai magaciisa dhabta ah waa Jay Hemant Sharaf laakiin markii dambe fanka ku soo biiray waxa uu la baxay Tiger Sharaf kana wuxuu caan ku yahay filmaanta actionka waxa dhalay ruux cadaaga Jake Sharif kaasoo isagana ah jilaa hooyadiina waxa lagu magacaabaa Aisha Sharaf waxa ka yar gabadhana waxa lagu magacaabaa iyadana Krishna Sharaf Tiger Sharaf 23 May 2014 ayuu fanka ku soo biiray filimkiisii ugu horeeyana waa Hero Panty kaasna waxa iskala soo muuqdeen atrishada Kirti Sanon Tiger Sharaf waxbarashada wuxuu ka bilaabay American School of Mumbai sira ayuu ka baxay heer jaamacadeed markuu gaareen hore Frangelista kama soo gelin Tiger Sharaf waxa uu kamid yahay aktooriyaasha farakutiriska oo bartay martial artist-ka Tiger Sharafna waxa uu haystaa suunka madow waxa uu qatar ku yahay dagaalka lug iyo gacan isagoo ka haysta darajada heerka shanaad Tiger Sharaf waxa kale oo aad u yaqaanaa ciyaarta dansiga kaasoo uu sheegay inuu yaraantiisa bartay waxa uu weli taageeri jiray dhanka dansiga fanaankii geeriyooday ee Michael Jackson waxaana marar kala duwan filmihiisa ugu soo bandhigay qaab ciyaareedkii Michael Jackson waxaana xusid mudan jalaagan Tiger Sharaf inuu aad u taageero superstar-ka caanka Hrithik Roshan kaasoo weli taageeri jiray oo ku diyan jiray oo rajeynaya mustaqbalka maqaamku isaga oo gaaray oo kale inuu ka gaaro shirkadda Bollywoodka ama fanka Bollywoodka Tiger Sharafna waxa dhacday 2019 riyadiisa inay urmooday jalaaga Hrithik Roshan filimka War ee ka soo wada muuqdeen Tiger Sharaf mar wax laga weydiiyay aktooriyaasha fanka Bollywoodka waxa uu sheegay xagga dansiga iyo kartidaba inuu kaga dayado jalaaga Hrithik Roshan laakiin waxa uu sheegay dhanka dagaalka inuu kaga dayado oo weligoodna aflaamtooda daawan jiray markuu yaraa Ajay Devgan iyo Akshay Kumar haddana aan eegno jalaaga Tiger Sharaf 2014 filimkiisii Hero Panty oo keenay kaasoo hidweyn noqday taa ka dambeeyna jalaaga Tiger Sharaf waxa uu suuro gashay inuu noqdo aktoor filim kaligii hogaamin karaya oo gadi kara Tiger Sharaf 23 May 2014 filimkiisii Hero Panty markuu uu soo baxay kaasoo hid noqday 2 sano kadibna waxa uu yimid filimkiisii actionka ahaa aad iyo aadka loogu amaanay ee 29 Abriil 2016 soo baxay filimkii lagu magacaabay Baji kaasoo isagana hid noqday waxa uu xigay mashaariic kala duwan filimka Flyjet kaasoo flop noqday Mona Michael kaasoo isna flop noqday waxa kale xusid mudan 2018 inuu la yimid Baji 2 kaasoo isagana blockbuster noqday waxaana xusid mudan 19 haddana filimkii weynaa ee War kaasoo isla sameeyeen superstar-kii caanka ah Hrithik Roshan oo blockbuster noqday muddo hadan laga joogo 8 sano ka hor ayuu fanka Bollywoodka ku soo biiray waxa uu suuro gashay 8 film inuu keeno 2 blockbuster ah 2 hid ah iyo 3 flop ah laakiin waxa xusid mudan filimkiisii Baji 3 kaasoo soo baxay 2020 wali shabakada box office India inaanu wali sixin natiijo ahaan markay saxan shabakada box office India waa idin la socodsiin doonaa waxa uu noqday Tiger Sharaf wuxuu caan ku yahay filimada actionka mar walbana naftiisa risk ayuu galiyaa waxa uu sameeyaa ficilo halis ah si ayuu risk galiyaa Tiger Sharaf waxa soo saaray Nandiwala Grandson iyo director-ka Sabir Khan kaasoo sameeyay filimkiisii ugu horeeyay Hero Panty 2 Tiger Sharaf dansiga idin kuma gaarto aad iyo aad ayuu u yaqaanaa ciyaarista dansiga iyo waliba ficilada sameynta actionka Tiger Sharaf macluumaadkiisa ma soo koobi karno laakiin anagoo ka soo qaadanay qaybaha ugu muhiimsan ayaan ku soo gabagabeynaa Tiger Sharaf taariikh nololeedkiisii oo kooban barnaamijkan halkaad ka socoteen aad ka daawanaysiina waa YouTube channelkeena Dulucda Filimada barnaamij lamada intaan ka kulmeeno waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasheenna waxaan u sheegaynaa inaan soo kordhinay inay nagala socon karaan Facebooka TikToka Telegramka intaba waxa ku qoran Dulucda Filimada ha moogaanin hana ka maqnaanin Dulucda Filimada